guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kulan saacado badan qaatay la yeeshay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay wehelinayaan ku-xigeenkiisa iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ganacsiga. kulanka oo intii socday warbaahintu dibadda ka ahayd ayaa markii uu soo ilaaday waxa warbaahinta uga warbixiyay kulankaasi iyo waxyaabaha uu daraa gudoomiye ku-xigeenka guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu yiri kulankan wuxuu ahaa maadaama aan anagu cusubnahay oo dalka ay ogtiin doorashadii May 11keedii dhacday inay wakiilo cusub la doortay in hay'adaha ama lala shaqeyno ama aanu wada soconno ama aanu la xiriirnaa inaanu isbarano si aanu hadhow meel uga wada qaadi karayno kulankan intaas uu daarana isbarasho iyo fahanka shaqada qaranka iyo xaaladda guud ee ganacsiga dalka. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamuud Xasan Sacad Saajin oo dhankiisa halkaas ka hadlay ayaa warbixin isaguna warbaahinta ka siiyay waxyaabihii ay kaga wada hadleen guddi hoosaadka dhaqaalaha. goluhu waa golo cusub annaguna waxaanu eegmanahay ganacsiga dalka marka waxa maanta aan isku imanay wuxuu ahaa marka horeysa isxogwarsi iyo isbarash wixii ay la weydiiyeenna waan uga jawaabnay waanan moogtahay run ahaantii si fiican bay noogu dhacday waanan moogtahay kii u horreeyey mana kala maarmo baarlamaanka iyo dowladda inteeda kale moogtahay fulintu had iyo jeer waxay u abuuran yihiin check and balance in wixii khaldameen la toosiyo wixii saxana moogtahay la isku raaco. sidoo kale wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xasan Sacad Saajin oo su'aal laga weydiiyay korukaca ku yimid maciishada ayaa waxa uu kaga jawaabay horta waxa weeyaan badeecadaha wadanka way qaaliyoobeen aad leedahay dibad baa ka keenaa ma beerano waxay ku xiran tahay kolba qiimaha dibaddu siduu yahay waxaan ogsoonaada inta dambe waxa dhacay waxyaabo badan ka warhaynin containerskii wax lagu soo qaaday jiray ee $2,000 lagu keeni jiray dhowr iyo $10,000 bay marayaan marka sidaa ay dhacdo dee badeecaddu way qaaliyoobi ninka badeecadda keenay imika waxaan qabaa macaashka ugu yar inay helaan baa mushtari marar ay sida marka badeecaddu aad u jaban tahay macaash bay helaan macaashka ugu yar bay helaan mana oran karo annagu suuqa waan ku jiraadeed laysa kulma daba joognaa suuqana waan ku jiraa waan ognahay wuxuu ku jooga dadka ma oran karo ku iibiya wax qiimaha soo sitay ka yar saasay u dhacday koonteynada cilka maray dad baale arrimo politigiisa caalamka jira koonteynada reer galbeed baale inaguna China xageeda u kacay iyo lagu qaaleeyay waxa bixinaya ka isticmaalaya badeecada bixinaya marka